السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن كلاي مركلي سؤالهني. أول سؤال هنا ماشي نقص بالله إن شاء الله جوابهني. waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba su-aasha koobaad waxay ku leedahay sheeg magaca ummuna caaisha bintu abubakar binu sidiiq nabiga xaasaskiisii ka mid ahayd radia allahu canhu gabadhii keliya nabigu ku guursaday gabarnimo hooyadeed magaceeda laga rabaa. hooyadeed magaceeda waxaa la dhahaa ummuna caaisha. hooyadeed magaceeda waxaa la dhahaa umu rumaan aa la dhahaa umu rumaan. hooyada caaisha magaceeda umu rumaan sheeg waxay ku leedahay. su-aasha kale cali bin abi daalib hooyadiis magaceeda sheegay ku leedahay. cali bin abi daalib hooyadiis magaceeda sheeg. waa faadimatu bintu asad. cali bin abi daalib hooyadiis magaceeda faadima bintu asad waaye. faadima bintu asad aa la dhahaa. faadima bintu asad waa faadima bintu asad waayahay. weli sheeg nebi maxamed hooyadiis magaceeda. suubanaheena sala allahu calayhi wasalam kuwada saliy nabiga sala allahu calayhi wasalam. soo qor nabiga salliga nabiga soo qor sala allahu calayhi wasalam. waa inaad salliga nabiga badisaa oo lagu badbaadaa. waa aaminatu bintu wahab baa la dhahaa. yaa aamina bintu wahab ala sheeg imise jeer baa qur-aanka lagu sheegay ereyga alqiraar alaaqira ereyga alaaqira imise jeeraa lagu sheegay qur-aanka ku leeyahay. ereyga alaaqira qur-aanka waxaa lagu sheegay 15 jeer. ereyga adduunya imise jeera qur-aanka lagu sheegay 15 jeer. inkastoo ilaahay yiri walal aakhiratu khayru laka min al-uulaa nebi maxamed lagu dhahay haddana waa mid 15 jeer lagu sheegay qur-aanka. okay su-aasha kale waxaa ku leedahay meeqa jeer baa qur-aanka lagu sheegay ibliis. ereyga ibliis waxay ahayd waa junuuda ibliis ajmacuun imisaa lagu sheegay taas 11 jeer baa lagu sheegay. su-aasha kale waxay ku leedahay sheeg saxaabigii ugu horeeyey ee gurigiisa masjid gurigiis ka samaysta sheeg saxaabigii ugu horeeyey. waa muscab bin cumeer. saxaabigaas magaciisa waxaa la dhahaa muscab bin cumeer. yaa saxaabi ugu horeeyey gurigiisa masjid ka samaysta waxaa la dhahaa muscab bin cumeer. sheeg su-aasha kale waxay ku leedahay sheeg safiirkii ugu horeeyey ee islaamku yeesho. islaamka waxaan safaaradahan islaamka asalkooda laga keenay. safiirkeena hebel safiirkeena noo fadhiya safiirkii ugu horeeyey islaamka asana waa la iska rabaa waa muscab bin cumeer. sidoo kale safiirkii ugu horeeyey islaamka waa muscab bin cumeer. halkaas nagu sheeg waxaan su-aalaha xeex kala ahaayeen. sheeg magaca umuna caaisha radiallahu canha hooyadeed waa umu rumaan. sheeg magaca hooyada cali ibnu daalib dhashay allah ka raali noqday waa faadima bintu asad. sheeg imis jeer qur-aanka lagu sheegay ereyga alaaqira 15 jeer. sheeg imis jeer qur-aanka lagu sheegay ereyga dunyaa 15 jeer. sheeg saxaabi ugu horreey gurigiis ka samaysta masjid muscab bin cumeer. sheeg waxay ahayd safiirka ugu horreey islaamka
muscab bin cabeer sheeg imise jeer ibliiska qur-aanka lagu sheegay 11 jeer okay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subscribe like share